أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا توافق التراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومركلة برنامجكيني aynu ugu magac darnay xaq dhowr ee aynu kaga waramanay xaqa iyo xuquuqda aynu isku leenahay dhexdeena iyo xaqa uu nagu leeyahay khaaliqayna abuuray, sidoo kale xaqa uu nagu leeyahay xabiibkeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam. barnaamijkeenan maanta wuxuu noqon doonaa xalqadii afraad ee kamid ah barnaamijkaasi xaq dhowr aynu ugu magac darnay. waxaynu maanta ka warami doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xaqul culamaa, culimada diinta islaamku xaqa ay ku leeyihiin ummadda inteeda kale. culimada fil islaam ama islaamka dhexdiisa waxay leeyihiin mansilo iyo makaan aan haba yaraatay cid kale oo basharka intiisa kale ah aan la barbar dhigi karin. maxaa yeelay culimadu waa warathatu lambiyaa, kuwii ambiyada dhexlay, waa xamalatu lcilm, kuwii aqoonta xambaaray ee qaaday, waa kuwii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku aaminay shariicadiisa, waa kuwii marka uu dhinto caalim ka mida culimadaasi aan haba yaraatee meesha uu baneeyey wax buuxinaya aanu jirin ilaa qiyaami saaca. culimadu waa kuwa uu ku nooleynayo ummadda ilaahay subxaanahu wa tacaala. culimadu waa kuwa dadka ka soo saaraya jahliga iyo mugdiyada, una soo saaraya iftiinka, iimaanka iyo camalka suuban. sidaa darteed baa shareecatu lislaam ama diinta islaamku waxay ina barasaa ama ina tusasaa xaqa ay culimadu leeyihiin, weynida uu weyn yahay darteed, iyo digitaan laynooga digayo inaynu xaqa culimada aynugu leeyihiin aynu meel kaga dhacno. bal u fiirsa ilaahay subxaanahu wa tacaala fi lqur'aani alkariim waxau isku barbar dhigay oo yidhi fii suurati zumar aayadda 9 bacda acuudu billahi min ashayطaani الrajiim qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab. nebi alla waxaad ku tidhaahdaa miyay siman yihiin aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun, kuwa aqoonta leh ee cilmiga ehelka u ah ee culimada ah, iyo kuwa aan aqoonta ehelka u ahayn ee aan waxba garanayn ee juhaasha ay miyay siman yihiin? xaqiiq ahaan waa ma sinna. ilaahay baa aayadda qeybteeda dambe ku tilmaamo waxau ihi inamaa yatadakaru ulu lalbaab. waxa kuwaan toobo uun oo waanadu ay waxu tartaa un ulul albaab, dadka caqliga iyo garaadka u saaxiibka ah. cubaadat bnu saamit radia allahu canh, xadiidka imaamu axmed uu soo warinayo, imaamu albanina uu taxsiininayo, waxau rasuulku leehi sala allahu calayhi wasalam laysa min ummatii man lam yujila kabiirana. ummadayda ka mid ma aha qofka aan weyneyn kaayaga weyn, wayarxam sagiirana, aan u naxariisan kaayaga yar, wayacrif licaalimina, aan garan oo aan baran xaqa iyo xuquuqda uu leeyahay iyo mansilada uu leeyahay kaayaga aqoonta leh. hada alxadiid waxau rasuulku inoogu tilmaamaya ahmiyadda uu leeyahay iyo khatarta ay leedahay in la garan waayo, oo rasuulku wuxuuba tilmaamay oo uu ka nafiyey kamid ahaanshaha qofkaasi uu ka mid yahay sifooyinkaasi yeeshay. qofka aan qofka weyn aan qadarinin weyneyn, qofka yarna aan u naxariisan, culimada rabbaaniyiintaana aan baran. idan intaasi waa qordhordhac aynugu talagalnay bal inaynu fahanno culimada iyo mansilada ay ka dhex taagan yihiin fi lislaam. bal waxaynu ka tilmaami doonaa dhowr qodob oo ku saabsan xuquuqul culamaa, xuquuqda ay leeyihiin dadka culimada ah. maadaama aynu tilmaannay inay yihiin dadka noocaasa culimadu, bal aynu tilmaanno wax ka mid a xuquuqda ay leeyihiin. deeta waxaynu ku xigsiin doonaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo qadaro culimada marka xaquuqda aynu sheegano la waayo ama laga tago maxaa bedeli kara ama maxaa meeshii soo geli kara. 1 tacdiimuhum واxtiraamuhum wa tawqiiruhum,
in la weyneeyo, la ixtiraamo, la maamuuso dadka culimada ah. waxa uu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy xadiidka abu daawuud uu soo wariyey imaamu albani inuu taxsiiniyey, ina min ijlaali illaahi ikraama dii shaybati lmuslim. weyniinta ilaahay subxaanahu watacaala la weyneynayo waxaa ka mid ah in la maamuuso oo la sharfo qofka muslimka ah ee islaamnimada ku dhex xiraystay. waxaamili lqur'aani gayra algaali fiihi waljaafi can, iyo in la weyneeyo, la ixtiraamo, la maamuuso qofka saaxibulqur'aanka ah ee qur'aanka aqoonta u leh, ee fahmaya, ee garanaya. qofkaas oo xaqii iyo xuquuqdii qur'aanku ku lahaa ama diintu ay ku lahayd aan kan gaabin, kuna talax tegin, ee sidii loogu talagalay u qaatay, uguna dhaqmay, una xambaaray, ummaddan u gudbiyey. wa ikraami di sulطaani lmuqsid, waxaa kaloo ka mida weyneynta ilaahay subxaanahu watacaala in la weyneeyo oo la maamuuso, la sharfo qofka xaakimka ah ama madaxweynaha ama hogaamiyaha ah ama mas-uulka ah ee cadaalad fala ama cadaalad sameeya. hada alxadiid wuxuu inoo tilmaamayaa xaqa iyo xuquuqda ay leeyihiin dadka culimada ah. xadiidkaas qeyb ka mid a inoo tilmaamaysa. sidoo kale xaqa iyo xuquuqda ay leeyihiin iyo sida ay u mudan tahay in loo weyneeyo, loo maamuuso dadka muslimiinta ah ee islaamka ku dhex xiraystay, iyo sida ay u mudan tahay in loo berber istaago, loona weyneeyo qofka xaakimka ah. ibnu cabaas waxa uu leeyahay sida imaamu bukhaariyo muslim ay soo saareen, makahtu sanatan uriidu an as'ala cumar bn اlkhadaab radia allahu can aaya fama astatiicu an as'alahu haybatan lah. waxa uu leeyahay ibnu cabaas, ilaahay raalle ka haday sigii aabihiibe, waxaan ku sugnaa buu yihi sanad dhamaystiran baan sugayey si aan u weydiiyo cumar bn khadaab aayad fasirkeed. arrinta noocaasna igamay keenin awood darro kale, waxay ahayduun oon u awoodi waayey haybasho aan ka haybadiisanayo mid ka mid a culimadii saxaabatu rasuul ridwaan ullaahi calayh. culimadii ka dambeysay ee culamaa muslimiin qadiiman xadiitha waxay kutubta ay qoreen ay ku caddeeyeen ama ay baabab dhan u sameeyeen. baabu tacdiim alculamaa, sida abi xaatim uu ku tilmaamay kitaabkiisa aljarx watacdiil muqadimada uu baabaystay. imaamu axmedna uu u baabaystay oo uu yihi waxaabana la faray an natawaadaca liman natacalamu min, inaan u tawaaducno, isku dhuldhigno cidda aan wax ka baranano oo ah culimadayadii. ibnu xasm laftarkiisa waxauu leeyahay waxa ay isku itifaaqeen waajibnimada ay waajib tahay in dadka ahlu qur'aanka ah iyo ahluislaamka ah la weyneeyo. taasina waxay ku dhacaysaa oo ka mid ah dadka ahlu qur'aanka ah iyo ahlulislaamka alkhaliifatu walfaadil walcaalim. xaqa labaad ee culimadu leeyihin waxaa ka mid a muxabatuhum, in la jeclaado. ibnu abilciz alxanafi waxauu leeyahay yajibu calى kuli muslim bacda mawaalaati اllahi warasuulih mawaalaat اlmu'miniin kama natqa bihi اlqur'an khusuusa aladiina hum warahaة اlanbiyaa. waxa uu ibnu cabdilciz alxanafi saaxibu shaarix طaxaawiya waxa uu leeyahay waxaa qof kastoo muslima ku waajib ah jacaylka uu jeclaanaya ilaahay iyo rasuulkiisa kadib inuu jeclaado oo uu xidhiidhiyo dadka mu'miniinta sida qur'aanku ku dhawaaqay fii suurati almaa'ida. waxa uu leeyahay gaar ahaan waxay si gaara usii saaran tahay inuu jeclaado dadka la yidhaahdo warathatu alambiyaa ee rasuulku ku tilmaamay xadiidka saxiixa ah inay yihiin culimadu warathatu alambiyaa, kuwii ambiyada dhexlay. qodobka saddexaad ama xaqa saddexaad ee culimadu inuu yihiin waxaa ka mid ah adducaau lahum wathanaau calayhim, in loo duceeyo lana ammaano wanaagna laga sheego. waxauu rasuulku tilmaamay xadiidka imaamu tirmidi uu soo warinayo ee uu saxiixinayo imaamu tirmidi in rasuulku yihi salى allahu calayhi wasalam ina allaha wamalaa'ikatahu xata namlata fii juxriha, ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo xataa quraanshada godkeeda ku jirta, xata alxuut fi lbaxr, libaax badeedka badda ku dhex jira, layusaluuna calى mucalimi الnaasi alkhayr, waxay u duceeyaan qofka khayrka baraya dadka oo ah qofka caalimka ah. hada alxadiid wuxuu inoo tilmaamaya inaynu u ducayno, ammaano dadka ahlu khayrka ah. qodobka afaraad alrujuucu ilayhim, in xaggooga loo noqdo, wasuduuru can ra'yihim laa siyama fi lfitani wاnnawaasil, in culimada lagu xidhnaado, laga agdhowaado, wax la weydiiyo, la su-aalo, gaar ahaan wakhtiyada fitanka iyo imtixaanaadka adag ay dhacayaan. ilaahay subxaanahu watacaala fi lqur'aani alkariim waxauna amraya ouna leeyahay wax weydiiya,
dadka ahlulcilmiga ah haddii aad tihiin qaar wax garanaya fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun suurat naxl aayadda 3 qodobka shanaad ama xaqa shanaad ay nagu leeyihiin wa taacatuhum fi lmacruuf wanaagga iyo khayrka ayna farayaan inaynu ku adeecno ilaahay subxaanahu watacaala fi lqur'aani alkariim gaar ahaan aayadda 59 fi suurati الnisa waxa uu ku tilmaamay uu leeyahay bacda acuudu billahi min ashayطaan الrajiim yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu الrasuula wa uli lamri minkum dadkii iimaanka lahaayow ee rabbiga rasuulba rumeeyeyow ee mu'miniinta ahaayow ilaahay ateeca kow wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca waxaad kalood adeecitaanka ilaahay rasuulkiisa aad ku adeecdaan wa uli lamri minkum kuwa idinkaydi ka mid ah ee amarka u saaxiibka ah ee amarka idiin haya culimada ibnu kathiir iyo keyrkii bay ka mid yihiin waxay ku tafsiiriyeen alumaraa waalculamaa inay yihiin dadka layna faray inaynu adeecno ee daacadoodu aanay mustaqilka ahayn laakiin ay tahay mid ku daba faylasa daacada ilaahay rasuulkiisa inay yihiin alculamaa walumaraa qodobka lixaad wa istishaaratuhum wa taqdiimuhum calaa gayrihim fi lmajaalis in lala tashado xagga ra'yiga iyo arrinkaba laga hormariyo marka kulamada iyo fadhiyada lasugu imanaya faqa qaba keyrkood oo ah dadkii aan aqoonta lahayn ama aan cilmiga lahayn ibnu cabaas waxau leeyahy kaana alquraa'u dadkii qur'aanka saaxiibka u ahaa ee akhriyi jiray waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumara cumar ibn khadaab majliskiisa kuwii saaxiibka u ahaa ee laga ag heli jiray ay ahaayeen iyo mushaawaratihi kuwa uu la tashado ee wax weydiiyo kuhuulan kaanuu aw shubbaana kuwaasi waxay ahaayeen qaar garmadoobayaala oo dad odayaal ah iyo dad dhalinyar ahba laakiin wuxuu ahaa waxa ay ka midaysnaayeen inay ehel u ahaayeen aqoon iyo cilmi oo ay ahaayeen dad culimo ah qodobka toddobaad ama xaqa toddobaad ay nagu leeyihiin waa ixsaanu danni bihim in malo wanaagsan laga malaysto malaha xuni waa dhib ama ma fiicna ilaahayna waxa uu inuu leeyahay fi suurati xujuraat aayadda 12 bacda acuudu billahi min ashayطaani الrajiim yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiira min aلdhan ina bacda الdhanni ithm dadkii ilaahay rasuulba rumeeyeyow waxaad ka dheeraataan kathiira min aلdhan in badanoo ka mida malaha ina bacda الdhanni ithm malaha barhkii waa dembi marka in laga dheeraado qodobka 8aad waa badlu nasiixati lahum in loo nasteexeeyo xadiidkii mashhuurka imaam muslim uu soo saaray waa kii rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ee lahaa addiinu nasiixa qulnaa liman qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim markaa diintu nasteexa u tahay culimo iyo caamo intaba marka culimaduna waa in nasteexadooda la qaato iyagana loo nasteexeeyo waa wax muhiima ama xaqa iyo xuquuqda ay nagu leeyihiin ayay ka mid tahay qodobka 9aad waa sawnu acraadihim waadhubu canhum bilxaq in la ilaaliyo sharafkooga dadka dacniyaya ama wax ka sheegaya in laga ilaaliyo lagana dheeraado kuwa noocaasna laga fogaado culimadii khayrka badnayd ay ka mid ahayn imaamu axmed waxau odhan jiray idaa ra'ayta arajula yaqmizu xamaad bnu salama faatahimhu cala alislaam fainahu kana shadiida cala almubtadica sheekhii muxadidka ahaa caalimka ahaa caabidka ahaa axmaad binu salama ayaa waxuu leeyahy haddaad aragta nin yaro qaniinaya ama wax ka sheegaya islaamnimadiisa dib u fiiri maxaa yeelay imaam axmaad binu salama wuxuu ahaa mid ku adag bidcada yaxya bn muciin isagna waxau leeyahy idaa ra'ayta arajula yatakalam fi axmaad binu salama wa cikrima mawla ibni cabaas faatahimhu cala alislaam ibnu casaakirna waa ta maqaalada mashhuurka isagana laga soo wariyay uu yidhi luxuumu lculamaai masmuuma hilibka culimadu waa sun wacaadat ullahi fi hadki astaari muntaqasihim macluumatu cidhib xumada dambe ay ku sugan yihiin dadka noocaas ah ee culimada hilibkooga ama culimada sharafkooga meel kaga dhacayaana waa mid mashhuur ah ama macluum ah oo la yaqaano lianna alwaqiicata fiihim bima hum minhu baraaءun amruhu cadiim والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاق على من اختاره الله منه khuluq dhamiim marka isagana maqaalada mashhuurka waa ka ku tilmaamaya dadka dacniya ama meel kaga dhaca ama cidigooga ceebeeya ama wax ka sheega in
arrinkoogu uu khatar ku sugan yahay. marka dadka qaar ba xadiis ahaan usoo noqliya, laakiin xadiis ahaan kuma ansixin ee waxa uu ku ansaxay uun maqaaladaas ibnu casaakir laga soo warinay. marka xadiis maaha. luxuum alculamaai masmuumatun xadiis ma aha. haddaba markaynu intaas la garanay iyadna waxaa lagama maarmaana hada alxuquuq aw hadihi alxuquuq, xuquuqdanaynu ka soo warranay culamaau lislaam ay ku leeyihiin baqiyat lumma, waxa uu ku qumayaa ama uu ku dhacayaa dhowr arrimood. kow, in culimada laftirkooda khata'a iyo zallada iyo simbirraxada ay leeyihiin, laakiin taasi aanay banaynayn in cirdigooda iyo sharafkooda meel lagaga dhaco. laba, alcismatu min alkhata lilambiyaai faqat, waxa gaf mamnuuc ka ah oo keliya ambiyada duuna gayrihi min albashar. cidda ka soo hadhay ambiyaduna waa qaar u bandhigan khata iyo gaf. waaye caalimku sida xadiidka saxiixa ah ee imaamu daawud iyo tirmidi ay soo warinaya, imaam albanina uu saxiixinayo, waxau rasuulku leeyahy sala allahu aleyh wasalam, caalimku ama qofka mujtahidkii haddii uu dadaalo oo uu baal maro dadaalkiisii ama uu ku gafo, hal ajar buu leeyay, ajru lijtihaad. haddii uu dadaalo oo uu asiibana waxau leeyahy lahu ajraan. waxau rasuulku tilmaamay uu leeyahy idaa xakama alxaakimu fajtahada faasaaba falahu ajraan. marka uu qofkii xaakimkii xukumo, ilan caalimkii laftarkiisu qeyb buu ka yahay xukunkiiyo fataawa la weydiinaya, waxbuu sheegaya, xukun buu ridaya. fajtahada faasaaba falahu ajraan, laba ajar buu leeyahy markuu asiibo ama uu haleelo saxi. wa idaa xakama fajtahada faahطأa falahu ajraan, marka uu wax kala xukumo ee uu ku gafo, waxa uu leeyahay falahu ajrun, ajar iyo hal abaal buu leeyahy. alcaalim ama qofka caalimkii ee weliba culamaau sunna ka mid ah, marka ay cilmigiisa iyo aqoontiisu ay caan noqdaan, fadligiisa iyo dheeraadkiisuna ay farabataan, cilmigiisana lagu intifaaco, kitaabu qoray ama kuwo u duubay, noocay doonaanba ahaadee cilmigiisa uu bulshada gaadho, khadigiisa iyo gefkiisa la raacraaci maayo. imaamkii weynaa ibnuqayim waxau leeyahy waman lahu cilmu biاsharci wاlwaaqic yaclamu qaطca ana الrajul aljaliil aladi lahu fi اlislaami qadmun صaalix waahaaru xasana wahuwa min alislaami waahlihi bimakan qad takunu minhu alhafwatu wالzalla huwa fiiha macduur bal huwa majuuru lilijtihaadi falaa yajuuzu an yutabaca fiiha walaa yajuuzu an tuhdara makaanatuhu waimaamatuhu wamansilatuhu min quluubi اlmuslimiin. xadiidka aynu soo akhriyanay ee imaamu tirmidi iyo abu daawuudba ay soo wariyeen ayaa maqaaladana ay xidhiir la leedahay. marka qofka caalimka ah ee cilmigiisu farabatay in loogu cudur daaro ayaa uu tilmaamayaa maquuladan ama weedhan imaamu ibnuqayim laga soo wariyey calayhi raxmat ullah. aلطacnu fi اlculamaa min sabiili ahli اlbidcati wاlfisq, in culimada la طacniyo, la ceebeeyo, wax laga sheego, ceebahooga tatabuc iyo raacitaan lagu sameeyo, waa calaamaad lagu yaqaano dadka fisqiga iyo xumaanta ehelka u ah iyo dadka bidcada iyo khuraafaadka ehelka u ah. alxadar, in laga digtoonaado min haybatihim wa dikrihim bisuu, in la xanto xumaana laga sheego, in laga digtoonaado. alxadaru min tatabuc cawraatihim wa zallaatihim wa nashriha bayna annaas, ugu dambeyn in laga digtoonaado oo layska ilaaliyo ceebahooga ama sibirraxashadooda in la daba raacraaco deeta bulshada dhexdeeda lagu faafiyo. su-aasha la isweydiinayna waxay tahay, haddii xuquuqdaas iyo waajibaadka ay ummadda inteeda kale ku leeyihiin culamaau lmuslimiin laga tago, maxaa dhib ah ee soo gadaal maraya? ama maxay ummaddu ka dheefsanaysaa in culimada la dacniyo, la ceebeeyo, wax laga sheego, xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin bulshada inteeda kalena la nusqaamiyo, sida maanta aynu aragno meelo badan oo caalamulislaami ka dhacda. aynu aragno in badan oo ka mid a qarbiyiinta ama dadka ku ta'asuray, ku raadoobay fikirka qarbigii, waxyaabahay maanta ku faafinayaan waxyaabaha loo yaqaano baraha bulshada ama social media. kow, waxaa la helaya adraarta ama dhibaatooyinka la helaya waxaa kamid a kow, dacfu alcilm wa intishaaru ljahli walbidca, in cilmigii aqoontii ay yaraato, jahligii iyo bidcadiina ay faafaan. laba, intishaaru lmunkaraat walmuxaramaat, waxyaabaha munkaraadka loo yaqaano ee fi shariica xaaraanta ah
marka lala soo banbaxo munkar buu noqonaya iyo waxyaabaha muxaramaadka inuu dadka ku dhex faafo. 3 tamakun wa tara'us ahlu ad-dalaal wa ulama as-suu'i wal mubtadi'a, in madax iyo hogaamiyaal laga dhigto dad baadi iyo dalaal saaxiib u ah, ulama as-suu' culimad xun ama wadaad xume ka loo yaqaano waa ulama as-suu' iyo culimo khuraafaadlayaal ah oo bidco ehel u ah. 4 tajarru an-naasi ala diin Allah وعدم تعظيم المعصية والجرأة عليها. وأنا قضب كمان تتاجن إني ما أنت ضدك كل يردان دين إلهي سبحانه وتعالى أو أقول لي يراعتان شهوة نفسانية أما وحيابها شهوات كالله يقانو يشبهات به يقول ضدك هيستا أما راعية إني كل يردان إني دينتي وحكا شيغان إني دينتي الليحيان إني دينتي فهم كيدي ضدك كوق اللوعيان inay baahidoodii iyo dantoodii gaarka kula dhiiradaan. taasi goormay dhacdaa? waa marka culimada xaqoogii la nusqaamiyo ee hoos loo dhigo. dadku waxay ku dhiiradaan ama agtooda ku yaraada macsiyadii, deeta markaasi ku dhaca macsiyadana oo agtooda ku bata ama ay ku dhacdaa. qodobka kale soo socda waa qodobka 5 waa inay dadku tajarru an-naasi cala al-fataawa wal halaal wal haram, inay dadku ku degdegaan. waa marka culimadii iyo dadkii ahlu cilmiga ah la waayo xalaashii xaaraantii. waxaan xalaal ahayn buu qofkii odhanaya waa xalaal, wax xaaraan ah buu odhanaya waa xaaraan, amaan xaaraan ahayn buu xaaraan odhanaya. walcaksu dhalik, shay xalaala buu odhanaya waa xaaraan, shay xaaraana wuxuu odhanaya waa xalaal. waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan marka culimadii booskoogii laga saaro ama la isku dayo in culimadii booskooga laga saaro. noocaasoo midhan baa soo baxay oo dadkii cid wax u sheegta, cid xumaan ka reebta, cid wanaag farta, cid u nasteexaysa, cid waanisa, cid aakhiradii xasuusisa meesha waa laga waaya ama way ka baxsa. indithaaru sunnati wa ahliha, in sunnadii ay ku yaraato ama ay meeshaba ka baxdaba, aw ay dadku aqoon yeelan waayaan sunnadii iyo hadigii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam. caadiyanna waxaa la yaqaanaa meel kasta oo sunno laga tago ama sunno meel laga saaro waxa meeshaa soo bixisa ama soo istaagta bidco. marka waxyaabaha laga dheefayo iyo dhibaatooyinka laga helay kamid tahay in culimada xuquuqdooda laga soo bixi waayo ama la ilaalin waayo. qodobka ugu dambeeya waa labsul xaqi bil baatil, وهذا يؤدي إلى ضياع العوام وجعلهم فرصة صائغة لمناهج التغريب وأفكاره وسلوكه. قضيتنا وقضية كله حساسية وإن حقي يبادل كل استحكريه. إما سينو ما أنت رجنا ضد يوجا أو ليا أفكار تغربية أمر هيك البيتك يجو لنا بربر وذا ضد أي شارع الموسوهيين أو تلاوضي أي قادام با وقبل لنا آيات أما حديث أي يجو لقون شبارين أما اللي يحيي فهم كذي. إلهي بنو كم جنجل لنا وحين ويديسنا إلهي بنو كم جنجل لنا dhibaatooyin ka noocan oo kale inay bulshadeena ku dhacaan iyo bulshada caalamka ee muslimiinta ahba. ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaa inuu khayrka iyo wanaagina waafajiyo. ilaahuna wallahu subxaanahu wa ta'ala ala muhkam billahi tawfiiq. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا توافق